waxay kaloo ka saarayaan 18 coin oo kale suuqooda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. asxaabteena qaaliga ah ee sharafta badan ee Somali Cryptofolio ku xidhan, xayaakum allah bayaakum. marka ugu horeysa ku saliya nabigeena xabiibkeena عليه أفضل الصلاة والسلام سيدو إلهي سبحانه وتعالى هو أمري يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. marka ugu horeysa aad baa mahadsantihiin. akhbaaro kala duwan baan inoo hayaa oo kriptada ah sad inagu ogeedeen mar inaan idinka dabageeyo wararkii ugu dambeeyey. inta aanan bilaabin aad waxaan uga mahadcelinayaa walaalaha like inoo saara markasta fiidiyoga taabaca. xaqiiqatan aad baa mahadsantihiin in maanta aynu ku soo badanay kanaalkeenii Somali Cryptofolio oo aynu lambar fiican gaarnay. mustaqbalkana wuxuu noqon doonaa kanaalka bulshada number 1 ee cryptocurrency ku takhasusay. markasta ilaahu mahad celin alxamdulilah allahumma lakal hamd. markasta ilaahu mahad celinna. waxaan ku faraxsanahay dadkii inay crypto ku soo biireen markay arkeen inay baashani si fiican u shaqeyso oo ay baashii barteen oo ay qaabka suuqa looga shaqeysto barteen oo ay waxyaalihii malawaalka ahaa ee youtuberadu ku wareerin jireen oran jireen businesskan ku hel $20 maalintii $50 maalintii $40 maalintii waxyaalo dadku ku dhex wareereen sanado fara badan oo ay waxba ka helin. alxamdulilah inay dad fara badan waxyaalaha iska joojiyeen. dad badan baa waqti kulumiyay marba intay meel geliyeen oo lacago gelinayeen ku khasaariyeen. taas weeye waxa aynu ka soo horjeedno. alxamdulilah in dadkii dariiqa saxa ah fahmeen dariiqa saxa ah ee xaqal caano lagala soo baxo. alxamdulilah rabbil caalamiin wax lagu farxo weeye. akhyaarta maanta warar yaryar oo gaaban baan idin hayaa. dadku ma jecla wararka dhaadheer, ma jecla waxyaala yara gaagaaban ee moogtahay sida baskawiidka ah iyo biskidka ayay jecel yihiin dadku. marka bal aan idinka dabageeyo wararka aan maanta idin hayo. khabarka ugu horeeya waxaa la yidhi suuqa Binance waxay ka saarayaan suuqooda exchange-ku coinan kala duwan sida Doji iyo Shiba iyo ADA iyo wariyaan la baqan iyo la cabsan iyo la baqan. khabarku soo socdaa waxay kaloo ka saarayaan 18 coin oo kale suuqooda. ma aha suuqii caadiga ahaa ee suuqii Binance ma aha spotka ahaa ee laga ganacsanayay ama wax laga kala sarifanayo ma aha. walaakiin coinankaas oo dhan waxaa laga saarayaa qaybta loo yaqaano future-ka iyo margin-ka. marka waxba yaan la cabsan. waxa weeye khabarka inuu si fiican u akhrinaa fiican way ku jirayaan meesha waxa ma dhacayaan. waan ogahay dad badan baa Dogecoin iyo haysta iyo ADA iyo marka iska ilaaliya. Shiba tabcan ogtiin waxa weeye coinka wala xarantimeeyay culamadii crypto way xarantimeeyeen ka fogaada yiraahdeen. laakiin Doji iyo ADA waa good way. coinankaas Doji iyo ADA iyagoo xalaal ah haddii aad kaga shaqaysatid dhinaca future-ka xaraam ay noqonaysaa laguma ogola. only waxa lagu ogol yahay iyo xusuusta spot thumma spot maxaa ku xigahay thumma spot. taas weeye taynu u baahnaa. marka coinanka kan way remove gareynayaan marka laga hadlayo dhinaca future-ka. يعني taasna waxa laga yaabaa inay saameynayso price-ka coin-ka maadaama ay dhinaca future-ka ka saareen ay still day ku jirto exchange-ka. waxa laga yaabaa inay price-ka coin-ka saameyso. marka walidaalika waxaan ku raadinaa markasta akhbaaraha la socda fundamental-ka cryptocurrency waa fundamental. akhbaaraha la socda news-ka la socda xogta meesha laga keeno la socda daa'iman. waxaad arkaysaa coinan cirkaa tegaya sababtuna waxa weeye waxbaa soo socda waxbaa ka dhici doona waxbay isku habeynayaan. marka daa'iman la soco coin-ka cayad aragtid waxbaa jira. marka waxbay laga baqan coinankaas waa saan sheegay dhinaca future-ka laga saaray. inaguna walillahi alxamd kuma jirno future. khabarka ku xiga akhyaarta waxaa la yidhi suuqa Binance waxay gubayaan in badan oo ka hadlay coinka marka la gubayo sababaha loo gubo waa maxay horaan uga hadlay. exchange-ka Binance waxay gubayaan 760 milyan oo token waana dufcaddii 15aad oo laga gubo loona inta soo tokenna. marka la eego shilinada la gubay labadii sano ugu dambeysay waxay gaadhay 76 bilyan weeye wax lambar yar ma aha. yani markaad eegtid 76 bilyan oo laba sano lagu gubo gudahooda waa xaqiiqatan lambar aad weyn weeye. yani Binance haday ku sii socoto inay markasta waxaas gubto maxaa dhacaya. yani haday 50 sano ku sii socoto aynka oo coinanka saa u gubayso waxaad arkaysaa de coinkaasu 50 sano kadib price-kiisu wuxuu marayaa $1. markay ka hadlaan ay yiraahdaan $1 bay noqonaysaana 50 sano kadib oo saas dhacaysa. hadalkaas wax macquul ma aha. ragga statistickeeda iyo nidaamkeeda si fiican u falanqeeya waxay yiraahdeen waxaasu wax dhici kara ma aha. khabarka ku xiga akhyaarta waxaa la yidhi dadkii soo boqonayay page-ka Bitcoin-ka marka la eego Wikipedia wiigii horena dhaafay wuxuu ku muujinayaa si waadax ah in ay dadku ihtimaam weyn siiyeen Bitcoin-ka. laano Bitcoin-ka aad baa loo baaraa weliba marka la eego markii ay soo taabatay all time high-geeda oo yani 69400 may ahayd markii ugu dambeysay ay gaadhay all time high-ga. marka aad baa loo baaraa dadku isweydiiyeen hadda shaarica dariiqa haddaad 10 qof weydiiso tiraad Bitcoin ma taqaani waxaa laga yaabaa inay 8 maqleen Bitcoin-ka ama inay kulligood maqleen. marka waa run weeye haddaad iminka weydiisid dadka badankood majority-good way garanayaan Bitcoin. qofka yani ugu macluumaad yar
ee aan bitcoin-ka wax sidaa ka hayn xog ama information wuxuu ka oranayaa wallahi bitcoin-ku waa wax qaaliya weeye bis intaasuu ka oranaya bitcoin-ku waa wallahi bitcoin-ku waa qaali waxaan maqlay konton ku bay gaadhi waxba laga yaaba inuusan baarin waxa ay tahay laakiin waxaa ka badbatay moogtahay dee sidii looga hadlayay bidhegtiisa khalaas waxa weeye bitcoin-kaas dadku ku dhigeen marka dadkii soo booqday wikipedia wiigii hore dad yar ma ahayn ziyaaraad fara badan baa loo sameeyey wikipedia si loo arko bitcoin khabarka ku xiga akhyaarta haddaynu eegno indicatorka loo yaqaano fear iyo greed wuxuu marayaa lambar fiican buu marayaa waa 72% week horena wuxuu marayay 69%. taasna waxay ku muujinaysaa in dadka ihtimaamkoodu batay marka la eego bitcoin-ka iyo cryptocurrency-ga taasna waxay xaqiiqatan wax aad u fiican weeye akhyaarta akhbaaro kale oo kala duwanna bal aynu saa u dulmarro akhbaarta waynu dulmaraynaa lano dee mid kasta gudaha kali ku siino waqti bay qaadanaysaa paypal haddaad aragtaan waxay soo saartay baa layiri coin PYUSD oo iyada lafteedu coin oo stable money bay soo saartay marka waa loo yeedhay kambaniga SEC da hay-adda amniga sarifka ayaa u yeedhay dabcan waxay ka weydiinayaan lacagtan stable money ay sameeyeen marka xaqiiqatan hadday baashaas shaqayso wax fiican weeye paypal oo stable money samaysatay coin baa layiri wuxuu helay coinkaas waa Ripple waa taqaaniin ogolaansho ayuu ka helay dhinaca waqtiga dowladda carabta waliba Dubai marka la eego Dubai International Finance Center oo markas Dubai العالمي loo yaqaano waa centerka ugu weyn Dubai ee laga maamulo dhaqaalaha iyo lacagaha iyo waxyaalaha waxay heleen ogolaansho taasna wax aad u fiican weeye halka waxay ka hadlayaan diitooyinkay ka hadlayaan diitooyin cusub weeye waxaa la yidhi 88.5% dadka bitcoin-ka haysta investorka waqti dheer haystay wax dhaqdhaqaaqa lagama samayn 3 bilood wax dhaqdhaqaaqa kama dhicin yani dadku weli way haystaan coinankoodii taas waxay ku muujinaysaa dadku inay coinankooda iska haystaan oo aan maaragtay qof kasta oo investor ka noqday meesha uu isleeyahay dhawaan buran baa dhici doona yani wax dhaqdhaqaaqa moogtahay sida uma ay samayn inkastoo nimanka xitaanku maalmaha kan si culus bay u shaqeeyaan waad aragtaa bitcoin-ku kor buu cararay Ripple weli waa dabaaldegaysaa inay mar kale haddana ka guuleysatay hay-addii SEC-ga la yidhaahdo marba waxbay u keenaan mar kasta way dhaaftaa mar kasta waxaa la hordhigaa caqabad way dhaaftaa marka Ripple meel fiican bay gaari doonta sida ila muuqata wallahu aclam waa ra'yigayga weeye yani mana ihin la taliya dhaqaale laakiin Ripple waxaad moodaa inkastoo nu coinka aan la tacaamulin beriran ka tegay markaan arkay in lagu dhegan yahay oo dhibaato ka jirta berer iskaga carray laakiin hadda waxaad moodaa inay yani looyaradoodii aad u shaqeynayaan marka taasna wax fiican weeye marka dadkii Ripple hore u haystay horla waxba ka baqan iska haysta akhbaaru way farbadeen asxaabta sharafta badan intaas ban inagu soo dhameystiraya insha Allah ku dadaala inaad videoga share gareysaan like-na ku bakhaylina like aad buu ugu yaray kanaalka asxaabteen way taabacaan Cryptofolio laakiin like aad bay ugu yarayaan ku dadaala insha Allah inaad meel fog inoo gaarsiisaan like kursooyinkeenina insha Allah tacaala waynu soo wadnaa qofkii raba inuu ka faa'iideysto Somali Cryptofolio kursooyinka la bixiyo barashada cryptocurrency-ga contact numberka yarkaas idin soo dhigay insha Allah ka faa'iideysta WhatsApp-ka qoraal igu soo qor ama cod igu soo duub insha Allah haddaad dareynaysa inaad wax baratid si sax ah in lagu baro ilaa inta aan mar dambe insha Allah akhbaaro kale idinla wadaagi doono aad baan idin salaamay waad ku mahadsantihiin daawashada waana walaalkiin Axmed Aadan wey wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu